labadani beelood ee walaalaha ah ee wada degay ismaamulka Mandera beesha Murale iyo beesha Garre ayaa waxa u dhaxaysay xurguf ka dhalatay deegaanka iyadoo oo u dhaxeeya magaalooyinka Ceelwaaq iyo Lafey kaas oo beel walba dhankeeda iyadoo ay sheeganayso in deegaankaasi iyadoo ay leedahay muddo ay labada beelood isku haysteen deegaankaasi wax heshiisan ay ka gaari waayeen kadib waxay arintani u bandhigeen Sheekh Maxamed Cabdi Umal iyo culimo uu hogaaminayo ayagoo sheegay wax walba oo ay culimadaasi soo saartay inay sideeda ku qaadan doonaan go'aankii kama dambaysta ah ayaa waxa maanta soo saaray Sheekh Maxamed Cabdi Umal iyo culimada uu hogaaminayay xaflad go'aankaasi lagu soo bandhigay ayaa maanta lagu qabtay magaalada Mandera waxaana xafladaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha dhanka ammaanka gobolka Waqooyi Bari Kenya Indalana gudoomiyaha ismaamulka Mandera Ali Ibrahim Roba senatarka ismaamulka Mandera Maxamuud Maxamed Muumad xildhibaanada iyo waliba wakiilada labada dhinac ee laga soo doortay deegaanka ay isku haystaan labada beelood odayaasha iyo waliba hoggaanka labada beelood iyo waliba bulshada magaalada Mandera qaar kamida xafladda oo ay ka hadleen mas'uuliyiin kala duwan ayaa mas'uuliyiintii ka hadashay waxaa kamid ahaa Ali Ibrahim Roba gudoomiyaha ismaamulka Mandera asagoo ugu baaqay waxgaradka labada dhinac in ay sidooda ku qaataan wax walba oo ka soo baxa culimada uu hogaaminayo Sheekh Maxamed Cabdi Umal waxaan rabaa wax alle wixii culimada ay noo soo go'aamiso inaan qaadano hataa haddaad u arkaysaan in dhinacan ama dhinac kale ay muugtahay kisto ay kula habbooneen maslaxada ummadan awgeed annaga dowlad goboleedka countiga iyo dowladda dhaxaba diyaar baan u nahay 100% wixii na soo saameeyo shaqo ahaan annaga nagu soo aadan inaan dadaal badan gelino wixii qarash loo baahan aan gelino insha Allah inaan arintaas sida ay ku fuli lahayd aan galno sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay hoggaanka labadaasi beelood oo iyagu sheegay in wax walba oo culimadaasi ka soo baxo uu hogaaminayo Sheekh Maxamed Cabdi Umal kharaar iyo macaan ay sideeda ku qaadan doonaan insha Allah kaalinta naga aadan waa qaadan doonaa insha Allah waan fulin doonaa na sisi tukiwa jamii tukiwa waislamu tuchukue vile mashaikh yetu wameamua na tukae na amani Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo go'aanka kama dambaysta laga sugayay ayaa isagu halkaasi ka hadlay waxaan jeclahay insha Allah taala go'aamada kadib inaan ku wareejino cidda iska leh mas'uuliyadda fulinta iska leh oo dawladda ah ayaguna horay u ballan qaaday inay u istaagayaan fulinta go'aamada soo saaray marka mas'uuliyadda waan wareejin qoraal baan ku wareejin insha Allah taala markii la akhriyo kadib koobiyana waa siinayna dawladda insha Allah taala iyo labada beelood odayaashooda mid walba koobi baan siinayna xurgufta u dhaxaysay labada beelood oo ka dhalatay deegaanka iyada oo u dhaxeeya magaalooyinka Ceelwaaq iyo Lafey ayaad moodaa in haatan la soo afjaray maadaama culimada uu hogaaminayay Sheekh Maxamed Cabdi Umal go'aanka kama dambaysta ay soo saareen waxgaradka ama hoggaanka labadaasi beeloodna ay ballan qaadeen in ay fulin doonaan wax walba oo culimadaasi ka soo baxay محمود محمد شيخ محمد الفقر والباهنت استا مانديرا